السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا عنا ونكسن أمد الصوماليات runtii aad u mugaysan oo aad u dhibaataysan dareenkeeni waa la qiibsanaynaa wixii ku dhacay musiibadii ku habsatay dhibaatadii loo geystay runaantii waan la qiibsanaynaa waan la murugoonaynaa waan la tiireeysanahay runtii dadkii meesha iyada naftoodii ku waayay Allah u naxariisto inta dhimatay waxaa laga maarmaan ah inaan sheegno waxaa laga maarmaan ah wixii aan soo ogaanay markaan muxuu ahaa baaris dheer aan sameynay musiibadii dhacday waa laga maarmaan inaanan qarinin ruuxii dhibaatadan geystay muxuu ahaa wuxuu ahaa iyo wuxuu ka shaqayn jiray iyo eeduu ahaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan u cadeyno xaq baan u leenahay cid aan ugu heebaysanayn haba yaraatee malahan qaraxan waxaa sameeyay nin Soomaali ah magac Soomaali wato oo reer Muqdisho ah oo hadduu Ilaahay ku roon yahay waqtiyadii dambe hadda la joogay wuxuu ku noolaa magaalada Hargeysa ayuu ku noolaa magaalada Hargeysa ayuu ku noolaa laba xaas buu lahaa labadiisa xaas waxay ku nool yihiin magaalada Hargeysa ninkan Saacid baa la yiraahdaa ninkan nafti halligaha ah ummadan laayay wuxuu ahaa waagiisii hore al-shabaab ayuu ahaa uu kana soo goostay waxaa soo dhaweeyay abbaanduulihii waqtigii Sheekh Shariif ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la dhihi jiray Geelaruush ninkii la dhihi jiray qofkii yaqaan wuu yaqaanaa Geelaruush waa nin habar gidir oo sacad ah oo raahilowla ah oo la yaqaano ayaa soo dhaweeyay ninkan waagiisii hore markuu ka soo goostay al-shabaab asagaa soo dhaweeyay asagaa muxuu ahaa xil u dhiibtay in badan oo kamid ah saraakiishii asaga la shaqayn jiray hadalladii uu dhihi jiray waxa kamid ahaa wadankan haddaan kitaabka Ilaahay lagu xukumin horumar ma gaarayo wadankan haddaan kitaabka Ilaahay lagu xukumin horumar ma gaarayo saraakiishii uu la shaqayn jiray baan ilaa halay wada hadlaynay waxay ii sheegeen mar walba wuxuu rabay inuu anaka nagu shahiido war anaka kitaabka noo dhiman muxuu yahay buu yiri ninkii sarkaalka halay aan wada hadlaynay war anaka muslim baan nahay waa tukunaa waa soonnaa waa salaadnaa dalkeeni baan heegan ugu jirnaa inaan dadkiisii aan badbaadino wuxuu dhihi jiray wadankan haddaan kitaabka lagu xukumin ninkan hooyadiis waa Isaaq hooyadiis waa Somalilander maamulkan Somaliland ayuu ka soo jeedaa hooyadiis waa Isaaq labadiisa xaas waxay joogaan magaalada Hargeysa joogaan in badan oo kamid ah markii ninkaas banduulaha xilka laga qaaday wuxuu u wareegay magaalada Hargeysa ayuu u wareegay waa nin muxuu ahaa beesha habar gidir ah oo sacad ah oo raahilowla ah waxaa la yiraahdaa Saacid la yiraahdaa qofkii aan ogeyno ha ogaado sababtoo ah inaan wax qarino nagama suurtoodo anaga waa sheegaynaa wixii shalay meesha ka dhacay baa wax walba ka weyn inaan cadeyno xaq musiibadii shalay meesha ka dhacday mid la qarin kara ma ahan garaashka laga soo diyaariyay hore baan idinkugu sheegay garaashkii oo Saybiyaana garaash ku yaalo oo Ismaan Caata lahaa ayaa lagu soo diyaariyay qaraxa ma garad yaan meelaha lagu marmeeraysiin waxaa la yiri nashuusintay ku nabto ayay nabiga kaaga hormartaa waxdaladoodii maalmahan waxaan arkaa anakana lagu soo duulay anakana la laayay qaraxana waxaa loola damacsanaa meesha loo waday waxay ahayd ma ahayn number 4 iyo Zoobo looma wadine qaraxa waxaa loo waday laga bilaabo Trebiyaano ilaa iyo madaxtooyada ayaa loo waday in ummadda meesha ida ku nool askarta leh shacabka leh ganacsatada leh in lagu gumaado ayaa la rabay laakiin waqtigii oo la gaarin baa qaraxii waqtigii waa ku sibi waayay god khiyaana haqoodin hadaa qodidna waxa igu maqaalaa inuu adeerkiis ku dhintay Saacid ninka la yiraahdo oo qaraxan sameeyay adeerkiis inuu ku dhintay oo laba kamid ah walaalihiis inay meesha iyada ku halligmeen oo ay dhinteen ما قرت
inay meesha ku dhinteen baan idin sheegayaa khasaarihii meeshii lala rabay meelaan ahayn buu ku dhacay xaruntii beeshii buu ku dhacay beeshii haldoorkeedii baa meesha ku dhintay kuma faraxsanin runtii kuma faraxsanin wallaahi oo bilaahi tallaahi inaanan ku faraxsaneen yaa aniga kuma faraxsanin ma fahamta warkaygu sababtoo ah soomaali dilkeedii ma aha midaan ku farxi karo damiirtayda ima siinayso dadka dhintay inaan ku farxo laakiin waxaan idin sheegayaa meesha khasaaraha ka dhacay waxaa waaye waxaa u badan ninka dhib ka geystay qaraabadiisii baa u badan haddana waxay suuqu soo geliyeen qaraha dawladda ka dambaysay in annaka nala laayaa la rabaa xalay nin baan la hadlay oo runtii saaxiibbo aan nahay oo beesha ah ayaan la hadlay wuxuu ii sheegay qaraxa annakana loola dan lahaa annakaa la rabay war qaraxa meeshiisii buu gaari waayey meeshii aad la rabteen buu gaari waayey ma garatay qaraxa meeshii aad la rabteen wuu gaari waayey laakiin aad iyo aad baan ugu xumahay aad iyo aad baan ugu xumahay aad iyo aad baan ugu xumahay beeshu waxaan leeyahay haddii fiqii hadalkiisi iyo mahad salaad aad fulinaysaan adeer yeelow meesha ayadaa idinkama jirto gaariga qarax lagu fuliyeyna shirkad ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee magaalada muqdisho ka shaqeeyo iyo soomaaliya oo dhan oo xawaaladaha ah ayaa iska leh shirkadaha shirkad ka mid ah leh gaariga qarax lagu fuliyey waxaana iska leh ninka qaraxa fuliyey seedigiisii baa gaariga leh ninka qaraxa fuliyey oo beesha habar gidir ah oo sacad ah oo reehilowla ah ina seedigiisii baa iska leh seedigii ayaa iska leh ma garat gaariga shirkadda yani muxuu ahaa shirkaddaas ayuu u shaqeeyaa ninka gaariga iska leh shirkadda daabshiil ayuu u shaqeeyaa afkeen inaan ka qarino xaq umaba lihinba ma garat ma dhihi karno anaka yani muxuu ahaa shirkaddaa ka dambaysay laakiin gaariga in meesha iyada ah laga leeyahay baan caddaynaynaa waxaan qarinayna ma lahaba yaraatee walaalayaal marka inta dhiminta allah u naxariisto laakiin waxaad ogaataa qaraha waxaa loo waday trebiano ilaa iyo baarlamaanka ilaa iyo madaxtooyada ayaa loo waday wakhtigiisii oon gaarin ayaa meesha iyadaa ku qarxay wakhtigii oon la gaarin ayaa meesha ku qarxay yaan waxba la qarinin hubkii yacni muxuu ah salballaar laheed ayaa gaariga ka wada buuxay bambooyinkii ruushka sameeyey oo yacni eberkii la sameeyey oo iyagooba exbayr ahaa ayaa ku jiray wax aanan ku jirin ma lahan hubka markii ninkan la qabtay wuxuu yidhi nin ganacsato ah oo beesha ah ayuu sheegay ayaa iskale buu yidhi maarkin muxuu ahaa alaabtan shidaalkan adduunyada isagaa iskale buu yidhi inta dhimita allah u naxariisto waxaan idin leeyahay walaalayaal qaraxa ninkaasaa ka dambeeyey abbaanduulahaas ha laga waraysto abbaanduulahaasa ninka aad u yaqaano taariikhdiisii geelaruush ha la waraysto geelaruush oo ahaa abbaanduulihii ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed wakhtigii sheekh shariif ha laga waraysto waad mahadsantihiin aniga jaanis fara badan ma hayo inaan arrintan aad u faahfaahiyey waan rabay laakiin dib ayaan idinku faahfaahin doonaa waadna mahadsantihiin hala sheergareey barnaamijka halis gaarsiiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh